السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي السودو هذا مركز طيب ميل كستو أد شوفتان با halkani waa Mustafa Show aniguna waa Mustafa waa qaybtii saddexaad ee barnaamijkeena taxanaha ahaa ismi kaadkii Najma oo labadiisii qaybood hore baad u tagi doontaan goobtan aynu ku leenahay halkani ama Mustafa Show qaybta saddexaad aynu guda galaynaa waxaynu joogtay iyadoo uu saaxiibkeen Samatar sugayo sawirradii Najma waxa iga xasuusinaa sheekadan waxa qoray Mustafa Atam oo degan magaalada Hargeysa sheekadana waxa la yiraahdaa ismi kaadkii Najma Samatar waxa uu sugayay sawirradii ay u soo dhiibaysay Najma oo joogtay magaalada Burco isla markaana saaxiibkii uu ka soo qaadayay nasiib xumadu waxay ahayd markii saaxiibkii ay noqotay inuu magaalada Burco muddo ku sii raago hawlo shaqo oo halka u joogay Samatarna waqtigiisii uu gabaabsi noqday xilligii uu ku laaban lahaa deegaankiisa oo Hargeysa ka ababixi lahaana ay soo dhawaatay iyadoo arrinku halka uu marayo ayaa saaxiibkii waxa uu ka soo baxay magaalada Burco waxaan u soo jeestay dhinaca magaalada Hargeysa Samatar waxa uu saaran yahay gaarigii ka qaaday magaalada Hargeysa ee dhinaca dawlad deegaanka u safrayay Samatar waxa uu wacay marar badan tiraba xoogaa dhowr jeer ayuu ku celiyay telefoonka saaxiibkii isagoo weydiinaya su'aalo runtii isdhaafsana oo ay ka mid ahaayeen saaxiib ma soo baxday gaarigii ma soo dhaqaaqay xagaad soo maraysaa dhowga shiiq ma soo dhaaftay berbere ma soo gaadhay sawirradii ma sidaa miyay ka lumeen iyo su'aalo kale oo runtii laga dareemayo qofku xiisaha uu qabaa inta ay leegtahay ama jacaylka haya ilaa heerka uu gaarsiisan yahay laba daran mid doora ayay noqotay in uu safro oo uu baxo isagoo sawirradii Najma arag iyo in uu joogo oo gaarigii uu raaci lahaa uu ka baaqdo sawirrada Najma si uu arko tooresa ayuu qaatay maadaama hooyadii uu sheegay in galabta uu magaalada Hargeysa ka soo ambabaxayo astaamaha jacaylku marka uu awood badan leeyahay oo ku hayo isma ogid ficilada aad ku dhaqaaqayso tan waa sababta dadka wax jecel qaarkood u sameeyaan go'aamo aan laga fiirsan tan waa sababta ay dadka qaarkood u sameeyaan go'aamo aan laga fiirsan gaariga ayuu raacay intii ay jidka ku soo jireen waxa uu khadka telefoonka ku sii jireen waxa uu khadka telefoonka kala sheekaysanayay Najma hadalkeeda iyo sawdkeeda ayuu ku raaxaysanayay aakhirkii waxa uu sheegay in goor dhow ay anteenadu ka tagayso ama adeega Samtel ay bixiso simikaadka Najma halkaasi uu ku eegyahay hawraarsan bay isku macsalaamayeen deegaankiisii ayuu gaaray balse markii uu waagu bariyay waxa uu tagay hooyadii isagoo iskuulkiisa soo diiwaan galin fasalkii uu dhiganayay waxaana uu sheegay inay galabta ay tahay daruuri inuu ku laabto magaalada Hargeysa muran dheer iyo istijiid kadib hooyadii way ka diiday waxa uu sheegtay in iyadoo arrinkaas ay damaanad qaadayso fariin ay reebayso alaabtaasina laga daba keenayo balse waxa uu ku adkaystay in alaabtaasi aanay ahayn alaab meel gooniya taale ee dad ay kala dhaxayso isla markaana qasab ay tahay isagu inuu ku laabto magaalada Hargeysa qaab qasab u eg aakhirkii waa la isla qaatay inuu ku laabto magaalada Hargeysa safarkayga labaad ayaan muddo guda galay muddo 24 saacadood gudahood 48 saacadood gudahooda ayuu Hargeysa u sii jeestay gaarigu leeydi xiisaha Najma ayaa igu soo carfaysa jihada waqooyi wadadu waa ay dheer tahay waliba way sii laba jibaarantaa kolka ay tabayso codahab Najma oo kala ah habeenkii oo dhan gaarigu waa uu guureynayay dadka qaar ayaa gaariga ku dulgamay aniguse badweynta ayaan dul dabaalanaya hirarka muxbada ay jiidaya markan cabaar ku hafto ayaan soo miirsadaa haddana muujado kale oo xusuus ah ayaan galaa sheekooyinkoodii ayay maskaxdaydu soo qoftaa sidii qaamuus aan cilmi ka baadhayo bog iyo bog kale oo uu ka xiisa badan yahay ayaan baadhaa kama daalo inaan baal kasta oo qaamuuskan ka mida ku nasto mar kaliya ayaan dhoolla caddeeya aniga oo dhoolla caddaynaya ayaan ku nastaa bog ka mid ah buuggan xusuusaha Najma qosolkeedii jooradaha ayaan dul istaagaa kadibna mar kaliya ayaan qoslaa waxaan mar kale soo miirsadaa iyadoo oo labadii garab fadhiyay ay ugu maadaysanayaan oo leeyihiin warmiyada qarweysa oo hurdada ayaad isku hadlaysaa uma joojiye tayda ayaan iska sii wataa oo hirarka jacaylka ee Najma ayaan dhex dabaashaa darawalkuna shukaanta gaariga ayuu iska sii wataa maskaxdayda waxa ku xardhan isma aanan weydiinin maxaad samayn doontaa haddii ay Najma noqon weydo tan aad suuraysatay ismana aan weydiinin wixii aan samayn lahaa haddii Najmada dhabta ah ee muuqeeda aan arki doona aysan dookhayga noqonin ama aanay noqonin qofta qalbigayga ku sawiran ee qalbigaygu already uu sii qiyaastay hooyo ayaan u sheegay inaan Hargeysa ku laaban doono daakiraadii subax ayaan magaalada Hargeysa soo galnay xaafadda qurac dheer masjid ku yaala ayaan salaadii subax faralkiis kaga ridnay kadibna waxaan u jarmaaday dhinacii gurigii uu deganaa saaxiibkay ama reerkii uu la joogay wiilkii sawirada aan ku dhihay igu dhiibay isoo qaadayay wicitaankaygii kama uusan jawaabin malahayga uu hurdaa oo wali ma uu toosin ayaan anigu isku jawaabay waxaan aad xaafadii uu wiilku la deganaa waxa ay la amankaageen sababta xilligaasi aan u socdo
gabadh markaas uu soo toostay oo quraac sameynaysa ayaan si naxsani weydiisay Samatar walaal magaariga ayaa dhexdeena kula jabay gabadhan way ogeed in shalay ma iyo dorraato aan ka anbabaxay magaalada waxaan ugu warceliyay may walaal degmadii ayaan shalay subax galay shalay casarkiina waan ka soo anbabaxay sabab ayay mar kale la soo booday alaabo muhiim ah oo burcal la iiga keenay ayaan ka tagay ayaan aniguna warkii ku soo koobay qolka fadhiiso aad quraacatide ayay iyaduna si degan igu qaboojisay waxaan galay qolka oo waxa jifa wiilkii aan rabay ee sawirka najmaha si degdeg ah ayaan u toosiyay waxaan weydiiyay aadam walaal sawirkii ma haysaa mise wiilkii kama aad soo qaadin wiilkii xalay ayaan ka soo qaaday ayuu igu jalbeebay anoo hiyi kacsan ayaan fadhiistay dhaqso u soo saar ayaan isagana ugu amray markiiba intuu soo kacay oo qol kale galay ayuu alaab buuran oo bac ku jirta soo qaaday intii aanu ii soo fidinin ayaan anigu gacantiisii laacay kadibna aan ka dhiftay alaabtii alaab kaadoog ku xidhan oo bac ku jirta si dhaqso ah ayaan u furay hay'adaha kale kuma aanan mashquulin sawirka ayaan isla markiiba bartilmaameedsaday intii sawirka aan raadinayna waxa dhulka igaga daatay alaabo yar yar oo ay kamid ahaayeen shukulaato ubax qalin iyo buug yare ama waxa loo yaqaan notebookska xogaa kadib waxa aan helay sawirkii aan aragtidiisa u soo boqolay boqolaalka kiiloomitir indhaha ayaan ka bogtay cajaa'ib wax aanan filanaynin ayaa igu soo baxay naxdin iyo argagaxna waa ay igu noqotay marna ma aanan filanaynin in sawirkan yahay najma dhowr goor ayaan fiirinta sawirka ku noqday bal inay runtahay iyo in kale wuxuu ii cuntami waayay waxaanan ka niyad jabay waxa is yeelan waayay sawirka aan anigu niyadda ku haysto iyo kana ii soo dirtay mana waalan mise cadan baa laga heesayaa 7 goor ayaan sawirkii hubiyay ma dhaba mise waa dhalanteed ma najma mise waa indhahayga rabbi yasir mar kaliya ayaa xiisahaygii noqday xoor guray qoftii aan codkeeda u oomanaa ayaan mar kaliya hiifay iyada ma nabci hadalkeeda ma nabci habdhaqankeeda ma nabci shakhsiyadeeda intuba way cajab galiyeen laakiin suuradeeda ayaa wax walba bedeshay culays 100 kilogram dhan ayaa ifuulay ama isaarmay waxaan ismoodayay nin xamaal ah oo 10 kiish oo sonkor ah tunka ku sida ama dhowr kiish oo sibir ah mooji malaha jacaylkayga ayaa kiish sibir ah ka cuslaaday dadka Soomaalida qaar kamid ayaa wax ku maahmaan dad iyo duurba waxaan filanaynin ayaa kaga soo baxa maanta najma sawir aanan filanaynin ayaa iga soo baxay sawirkan aan arkay ma ahayn mid fool xun laakiin kan kale ee maskaxdayda ku xirnaan ayaa ashqaraar kale ahaa marka la isbarbar dhigo waa kaafiye kale dheeri aminteeda iyadu aan hayay waa uu wiiqmay ama teedkan iyadu hayay waa uu wiiqday sida ay tahayna mar rabo inaan iyada dareesiyo inaan sawirkeedii hiifay ama aanan ku qancin waan wacay sidii wanaagsaneyd ee aan ula hadli jiray ayaan ula hadlay ma doonayo inaan qalbiga ka jabiyo waxaan ku yiri walaal magaaladii waan imid wax kale uma aanan iman sawirka dartiisa ayaan u soo noqday alxaasil hadda ayaan sawirkaagii gacanta ku dhigay ma sha Allah gabadh aad u qurux badan ayaa tahay sawirkaagu waa cajab galiyay 2 maalmood ayaan Hargeysa dib u sii joogi doonaa waxa ay u arki weyday xiisihii badnaa ee aan u hayn jiray xiriirkii badnaa ee telefoonkii ayaan yareeyay sababtoo ah xiisihii aan u qabay ayaa aad u yaraaday maalmahaas waxaan go'aansaday inaan gabadhaasi xiriirkeeda halkaasi ku soo gabagabeeyo degmadayda ayaan iskaga laabtay anigoo u muuqda mid gool daraystay jacaylkeygii fogaanta badnaa waxbarashadayda ayaan halkii ka sii watay sanad dugsiyeedku wuxuu ka kooban yahay 2 kalt ama 2 terms kalka koobaad waa 4 bilood kalka labaadna waa 4 bilood labada kal dhexdooda waxa ku jira fasax yar oo bila 4 bilood kadib waxaanu galnaa fasaxi weynaa waana aan mar walba Hargeysa ku aado gabadhii ayaan dib u wacay waana la xiriir aan rasmi ahayn oo gogoos ah ayaan u wici jiray waan salaami jiray balse sheekooyinkii sidaas u dhaadheer ma aanan la yeelanin waxaana iga dareentay inaan sidii hore ahayn waxay in badan i weydiisay isbedelka dhacay iyada jacaylkeedu wali ma uu naaqusin ismana dhimin sidii ay ii soo wici jirtay ayay ii soo wadaa marka ay su'aasho arrintan ay weydiiso su'aalo arrintan ku saabsan si macquul ah uma siiyo jawaabo markuu fasaxi dhamaaday ayaan degmadeedii ku laabtay kalkii labaad ee sanadjiyeedkiina halkaasi ayaan ka sii galay maalmaha kamid ah ayaan fikiray waxaan qalbigayga ku soo dhacday najma niyadda ayaan iska idhi waxaa laga yaabaa in sawirka ama kamaradu ay khaldanayd oo gabadhu ay sidaasi ka qurux badan tahay ee sidii sawirku u ahaa aanay ahayn arrintaasi ayaa igu dhalisay dareen waxaa mar kaliya fufay bogihii jacaylka ee aan muddada dhayi jiray si horle ayuu caashiqii igu laba kacleeyay kalkii labaad markii uu dhamaaday ayaan fasaxi weynaa galnay waxaagaa iyo Hargeysa ayaan aaday sidii caadada ay ahayd waan u safray waxaan socdaalay anigoo aad u xiisa qaba inaan najmo marun la hadlo waxaan qabaa rajo ah in wixii aan arkay uu ahaa sawir balse najmada dhabtahay ay sidaasi ka duwanaan karto waxaan naawilaya in wax walba ay u dhici doonaan sidii aan anigu suuraystay waxa aanan qorshahaba ku darsan ayaan kala kulmay saadaashii wacnayd waxa aan ku hungoobay sidii aan anigu isu bedelay ayay najmana goortan ama saacadan isu bedeshay maxaa loo dhahaa dumarku waa aadame aad u naxariis badan maxay iigu beerjileeci weyday
aniga maanta ayaan cilmi boodhari oo kale noqday mararka qaar waxaan is idhaahdaa jacaylka ayaa doqon kaa dhigay ama jacayl doqona ayaa ku helay oo ma jacaylka burcad jooga ayaa fariid ah haa gabadhu waa fariid ee jacaylkayga ayaa doqona markii ay ogaatay inaan aada ugu baahanahay ayay iga gaabsatay waxay bilowday inay iga aarsato aniguse si hoose ayaan uga gaabsaday laakiin iyada tiyadu waa badheen oo aniga inaan hiifay ficil ahaan iyada uma dareensin intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa qaybtii saddexaad ee barnaamijkeena simikaarkii najma waxaa qoray saaxiibkeen mustafa atam oo ah qoraa magaalada hargeysa degan halka aad kala socotaana waa mustaf show barnaamijkiisa xiga intayn la kulmayno saaxiibayaal waxaan idin leeyahay igula raaxaysta sheekadan sidaas iyo fi amaan allah